gabagabada siyaarada caalamkii caanka ku ahaa faafinta diinta islaamka iyo berideeda sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh cabdi celi ayaa ku bilaabatay akhrinta khidmooyin qur-aanka kariimka ah dikri iyo duco siyaarada sheekh cabdi celi oo sanadla ah isla markaana ay ka horeysay siyaarada wiilkiisa sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan ayaa degmada warshiikh ee shabeellaha dhexe waxa ay ka socotay muddo bil ah waxaana inta ay socotay siyaaradu culimadiinkii ka soo qayb galay ay si joogta u akhrinayeen khidmooyin ka mida qur-aanka kariimka ah duco iyo sidoo kale qasiidooyin waa gabagabada iyo banaanbaxa siyaarada 41aad ee Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Cabdi Celi oo muddo bil ah ka socotay degmada Warshiikh ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana halkan lagu soo gabagabeeyay sidaad arkaysaa waxa ka soo qayb galay kumanaan kamid ah dariiqooyinka kala duwan ee culimada ahlus sunnah wal jamaa iyo dadweyne kale oo isaga kala yimid gudaha iyo dibadda dalka jamiicooyinka kala duwan ee ahlus sunnah ee ka soo qayb galay banaanbaxa siyaarada sheekh cabdi celi waxaa ka mid ah uweysiya sayliciya samatariya galbiya rufaaciya iyo axmediya banaanbaxa kadib ayaa waxaa madasha ka hadlay sheekh Abuukar sheekh Axmed Yare oo u mahad celiyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay siyaarada sheekh Cabdi Celi waxaan halkan soo dhaweyn iyo mahad celin uga jeedihaynaa dhammaan axbaabta halkan soo xaadirtay oo ugu horeeyaan ahlu beyti nabiy sallallahu alayhi wa sallam iyo ahlu durub suufiya dhammaan الطريقة القادرية أو وهريو صاحب سجادة طريقة القادرية السيد شيخ أحمد بن شيخ أويس بن شيخ محي الدين بن شيخ أويس القادري يا ضمان أنت أيك كوبانته هردن وهكذا كان وبعد إلينا طريقة السيد بن شيخ أحمد بن إدريس وهكذا وبعد إلينا طريقة السيد أحمد بن الرفاعي السيد أحمد الرفاعي وأيضا الجوغان وهكذا وبعد إلينا أهل السنة والجماعة ودان لامهeda kulli oo wada joogan dhamaantiina waa idinkaga mahad celinaynaa soo xaadirteen waqtigiina as qiimaha la soo horteen ilaahay idinku abaal mariyaan leenahay sheekh daawud sheekh maxamed sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar ayaa ka sheekeeyay taariikhda Allah u naxariistay caalimkii weynaa ee Soomaaliyeed sheekh cabdiraxmaan celi oo ku lahaa faafinta diinta islaamka marka hadii madrasadii uu ka baxay wuxuu bilaabay kutubadii cilmiga koo waxa duruusta u bilaabay sheekh la yiraahdo sheekh maxamed shiidle darsigii koobaad rubuci hore oo cibaadada uu akhriyay ka baadiyeeday sheekhayna wafaadkiisa zawjaadkiisa oo qaatay waxay ahaayeen 7 awlaadiisa 7 wiilal waa 6 gabdho waa wuxuu dhintay maalin salaasa ah oo
bisha muxaram 12 ay tahay 1402 bisha Novembarna ay ahayd 1981 cumrigiisa wuxuu ahay 88 sano. dhinaca kale qaar ka mid ah mashaayikhdii ka soo qayb gashay siyaarada ayaa sheegay in Allah u naxariistay Sheekh Cabdi Cali uu ahaa caalim culimo badan oo Soomaaliyeed wax baray. waxaan nimiday ziyaaradiisa oo nimiday asiga iyo wiilkiisa Sheekhana Sheekh Xaaji Maxamed iyo saadaadka kale halkan waxa ka mid ah asigana Shabiisha Maxlaar زائرين أنا هالكان ساسا نمدي زيارتي شيخة مشايخدي أنا نمدي إن شاء الله تعالى الله نقبل. كوا درتي سلف فديستي درتي سو زيارتي درتي وحبحي وحاول سقناتي محبتي حق محبتي الله رواية كانوا حيلا وجبت محبتي دات كانوا كي وحسرقنا ولا ما كي شيخ عبدي شيخين يسل زيارتي ولا ما كي شيخ محمد يسل زيارتي ولا ما كي شاب بكر بحضار يسل زيارته ولا ما كي أصلا نولا يسل زيارته ولا ما شاء الله مركب أرض مباركة واي شيخيني جليل كاي ويناي شيخ عبد الرحمن شيخ عمر وعدوكتين رحلة دي سديني قاينا بلابات أصول حجرة ودكسي قلاي طبعا جرم وكبح حين علمي بلابي إلى عمري سنة كل ما يستي إنه دتك وحبراء وتربية جيلا بعد جيل إيه ولد كيسي عالمكي جليل كاهي أو ويناي شيخ محمد شيخ عبد الرحمن أو أصلا سيدي آبيس أهاي واتي لديه جري ومن يشابه أباه فما ظلم نك آبيه شبهه ظلم ما سمين وقدام بينتي شيخ البلد كدقمة ورشيخ شيخ قاسم شيخ عبد الرحمن شيخ عمر شيخ عبد علي أي سيارة سند لها الشيخ كوسو قتمي الدعاء مركز شيخين مركز الله نقاف زيارتي سنة إلهي ذيك مقبول الله نقدر زيارتي سنة مقبول الله نقدر انت زيارة سو حاضر كان الدين بغير الله ناف مراد دود الله سهله ويحق لك أنا أرمى يقفل بقلبك وكجر المراد هاي قفل بمراد كذا الله سي محمد يلور باهين تدلسن ورشيخ شبه الله دحي